Iska soo noqod wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtaan magacayga waa Qaliiji weli waxaa ku guda jirnaa casharadani Leven in Deutschland oo aan ugu talagalnay dadka raba in ay qaataan shahaadada lagu magacaabo Leven in Deutschland oo qosaysa isdhexgalka wadanka iyo in qof wax badan uu ka ogaado wadanka uu ku nool yahay oo ah Jarmalka. Maanta waxaan ka bilaabaynaa saaxiibayaal su-aasha 8aad waxaan gaarsiin doonaa 100 anagoo hadafkeen yahay inaan dhamaystirno dhammaan 300 oo su'aalood. Su-aasha 81aad wuxuu ku leeyahay saaxiibayaal Wer wählt den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin in Deutschland? Yaa doorto ayuu ku leeyahay wählt wax ka yimaada wählen oo ah doorasho marka qof wax dooranayo den Bundeskanzler ninka wasaaraha wadanka ah ama kanslarka ah ama die Bundeskanzlerin naagta wasaaraha ka ah ama kanslarka wadanka ka ah yaa doorto ayuu ku leeyahay. Qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay waxaa doorto ayuu ku leeyahay der Bundesrat qolo la yiraahdo Bundesratka waxaa fadhiya saaxiibayaal ergo laga soo diray maamul goboleedyada wadanka. Tusaale ahaan Hessen oo kale gobolka Hessen waxay soo dirsanaysaa ergo inta badan waxaa u badan xildhibaano iyo dad caan ka ah gobolka. Bayern oo kale ergey soo dirsanaysaa NRV ergey kale soo dirsanaysaa. Markii qof walba oo wax soo dirsado waxaa iskugu imaanaya marka dambe xarunta ay fadhiistaan ayaa waxaa la dhahaa marka Bundesratka iskugu imaanayaan. Waxaa doorto ayuu leeyahay die Bundesversammlung asigana wax kale maahan ergada hadda maamul goboleedyada ka imaaday oo meel fadhiyo iyo xildhibaanada guud ee wadanka meesha ay iskugu imaadaan ay wada fadhiistaan ayaa la Bundesversammlung. Wuxuu ku leeyahay das Volk shacabka ayaa doorto ku leeyahay wadanka joogo iyo sidoo kale der Bundestag maamul baarlamaanka guud ee wadanka ayaa doorto ayuu ku leeyahay marka teeba sax ah. saashtada waxaa taa saaxiibayaal kanslarka wadanka ama kanslarada wadanka waxaa dooranaya waxay tahay Bundestaga dooranaya oo xildhibaanada guud ee wadanka markay meesha ku yimaadaan ayay dooranayaan qofka wadanka Bundeskanslarka noqonaya. Su-aasha 82aad wuxuu ku leeyahay wer leitet das deutsche Bundeskabinett yaa hogaamiye ayuu ku leeyahay deutsche Bundeskabinett golaha wasiirada ee Jarmalka yaa hogaamiye ayuu ku leeyahay. Wuxuu ku leeyahay a der Bundestagspräsident die Bundestagspräsidentin naagta madaxweynaha ka ah baarlamaanka Jarmalka ama ninka madaxweynaha ka ah baarlamaanka Jarmalka. B der Bundespräsident die Bundespräsidentin ninka ka ah madaxweynaha wadanka ama naagta ka ah madaxweynaha wadanka. Waxaa hogaaminaya ayuu ku leeyahay c der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin naagta wasiirka ah ama ninka naagta wasiirada ka ah wadanka ama ninka wasiirka ah wadanka. iyo sidoo kale dee ugu dambeyso der Bundesratspräsident die Bundesratspräsidentin Bundesratka kan madaxweynaha u ah ayaa ninka ama naagta madaxweynaha u ah ayaa dooranaya ayuu ku leeyahay marka teeba sax ah. Marka su-aasha la weydiiyay oo ahayd yaa hogaamiya kabinetka golaha wasiirada wadanka yaa hogaamiya waxaa hogaamiya waa iska caddahay kanslarka hogaamiya ama ra'iisul wasaaraha wadanka ayaa hogaaminayo. su-aasha 83aad wuxuu ku leeyahay wer wählt den deutschen Bundeskanzler die deutsche Bundeskanzlerin marka la ayuu kusoo celiyay su-aasha oo ahayd yaa dooranaya ra'iisul wasaaraha wadanka oo ninka ah ama ra'iisul wasaaraha wadanka ee naagta ah oo lagu qaldaa su-aalaha lagu soo celinaya wixina lagu kala bedelaya in aad ku wareertaa laga rabaa sida su-aalaha fuushan kaleeto oo mar walba kusoo noqonaya. a wuxuu ku leeyahay das Volk shacabka ayaa hogaaminaya. b wuxuu ku leeyahay die Bundesversammlung qolada Bundesversammlung ka hogaaminayso. c die Bundestag ayaa hogaaminayo iyo d wuxuu ku leeyahay Bundesregierung dowladda ayaa dooranaysa ayuu ku leeyahay marka teeba sax ah. waa ogtihiin wax saada waxay tahay mar walbo kanslarka wadanka ama wasaaraha wadanka waxaa dooranaya waxay tahay Bundestag ayaa dooranaya. su-aasha 84aad wuxuu ku leeyahay welche Hauptaufgabe hat der deutsche Bundespräsident die deutsche Bundespräsidentin oder sie Hauptaufgabe waxaa waaye howsha guud oo ugu muhiimsan oo howsha guud ayuu haya ayuu ku leeyahay madaxweynaha wadanka ninka ama naagta madaxweynaha wadanka ah howsha ugu weyn ee hayso maxay tahay uu ku leeyahay asiga ama c ayada waxay hayso waxaa waaye regiert das Land wadanka ayay maamulaysaa. oder c asiga ama ayada entwirft die Gesetze sharciyada qaar ay bixinayaan. repräsentiert das Land wadanka ayay matalayaan. iyo ta u dambeysa ayadan überwacht die Einhaltung der Gesetze wuxuu waardiinaya in sharciga la ilaalinayo in kale ayuu waardiinaya ku leeyahay marka teeba sax ah. shaqada ugu weyn oo hayo madaxweynaha wadanka Jarmalka waxay tahay
keliya in oo representate uu ku sameeyo ama wadanka oo matalo wadanka ayuu matalaya representate das land wadankaas ayuu matalaya oo matalad u yahay inuu madaxweyne ka yahay wadanka. Su-aasha 85 wuxuu ku leeyahay wer bildet den deutschen Bundesrat yaa dhisa ayuu ku leeyahay Bundesratka yaa dhisiis baramba waa tii hadday aadin soo sharxay wuxuu ku leeyahay waxaa dhisa ayuu ku leeyahay die Abgeordneten des Bundestags waxaa dhisa Abgeordneten waxaa la xildhibaanada oo ka tirsan Bundestag ka tirsan dhisa ayuu ku leeyahay xildhibaanada guud ee wadanka Jarmalka. Waxaa dhisa ayuu ku leeyahay Bundesratka die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung wasiiradaha oo dowladda Jarmalka ka mid ayaa dhisa ayuu ku leeyahay. Die Regierungsvertreter der Bundesländer vertreterha ama kuwa dadka ay soo ergada matala Bundesländer maamul goboleedyada ayaa dhisa ayuu ku leeyahay. iyo ta waddanbisaydana die Parteimitglieder xisbiyada dadka ka diiwaan galsan ayaa dhisa ayuu ku leeyahay marka teebaa sax ah. marka haddaa idin sheegay saaxiibayaal Bundesratka waxaa dhiso ama iskugu imaado Regierungsvertreter der Bundesländer iskugu imaado maamul goboleedyada dadka matalo ama ergada matasho maamul goboleedyada ayaa isku imaanaya kadibna waxay dhisayaan Bundesrat. Su-aasha 83 wuxuu ku leeyahay wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten die Bundespräsidentin yaa doorta ayuu ku leeyahay Bundespräsident madaxweynaha wadanka ama ninka ka ama naagta madaxweynaha yaa doorta ayuu ku leeyahay su-aasha koowaad die Bundesversammlung ayaa doorta ayuu ku leeyahay qolada Bundesversammlung oo idin sheegay oo ahayd half waxay ka yimaadaan Regierungsvertreter des Bundeslands ka yimaadaan oo maamul goboleedyada ergada soo tirsata waaye qaar kaleetoodna waxay ka imaanayaan baarlamaanka guud ee wadanka Jarmalka meesha ay iskugu imaadaan marka waxaa la Bundesversammlung la beeda waxay tahay der Bundesrat dhisaya ayaa dooranaya uu ku leeyahay madaxweynaha das Bundesparlament ayaa dhisaya uu ku leeyahay baarlamaanka wadanka das Bundesverfassungsgericht maxkamadda guud ee wadanka ayaa dooranaysa ayuu ku leeyahay. marka su-aashan weydiiyo yaa doorta madaxweynaha jawaabteedu waxay tahay waxaa lagu doortaa madaxweynaha die Bundesversammlung ayaa lagu doortaa meesha oo ay iskugu imaanayaan dhammaan xildhibaanada guud ee wadanka Jarmalka oo Bundestag ku jiro iyo ergada kale ee ka imaanaysa maamul goboleedyada wadanka ayaa hal meel iskugu wada imaanayaan kadibna waxay dooranayaan madaxweynaha wadanka meesha lagu dooranayo waxaa la Bundesversammlung. Su-aasha 84 wuxuu ku leeyahay wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland Staatsoberhauptka qofka ugu sareeya wadanka wadanka Jarmalka yaa ayuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay der Bundeskanzler die Bundeskanzlerin wasaaraha wadanka ama wasaaradda wadanka b die Bundespräsident die Bundespräsidentin madaxweynaha ninka madaxweynaha naagta c der Bundesratpräsident madaxweynaha Bundesratka ama ninka ama naagta der Bundestagspräsident madaxweynaha baarlamaanka oo ninka ama naagta ayaa ugu sareeya ku leeyahay wadanka. marka su-aasha la weydiiyey oo ahayd yaa ugu sareeya wadanka Jarmalka waxa ugu sareeya waxay tahay Bundespräsident madaxweynaha wadanka Jarmalka darajo ka sareysa oo Jarmalka jirta malahan. su-aasha 88 wuxuu ku leeyahay die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag mucaaradka baarlamaanka Jarmalka wuxuu sameeyaa ayuu ku leeyahay controliert die Regierung wuxuu kontrolaa dowladda kontrolaa entscheidet wer Bundesministerin wird wuxuu go'aansanayaa qofka ministerka naqanayo ayuu go'aansanaya uu ku leeyahay mucaaradka oo xildhibaanada Jarmalka ku jirto bestimmt wuxuu cadeeyaa ku leeyahay wer im Bundesrat sitzt wuxuu go'aaminayaa qofka Bundesratka fadhiisanaya ayaa mucaaradka baarlamaanka go'aamiya ayuu ku leeyahay gidee schlägt die Regierungschefs wuxuu vorschlag ku sameynayaa ama la talin ahaan usoo jeedinayaa Regierungschefska madaxda oo dowladda Regierungschefin naagta ayuu soo bandhigaya micnaha ama tal ahaan usoo jeedinaya marka teebaa saxeex. marka jumladana la siiyey oo ahayd baarlamaanka mucaaradka baarlamaanka Jarmalka waxa uu sameeyay waxay tahay controliert die Regierung mucaaradan waa aragteen dowladda kontrolaa maanta dhan qalad yar hadday sameeyaan saxaafadda imaanayna way usoo bandhigaan xiliin dowladda qodobkaas si xun ay u sameysay
oo maxaa la sheeg oo controlka ku wadaan oo controlka badanaan wixii qalad walba ama dhaliil walba ay dowladda leedahay way siinayaan marka mucaaradka wadanka Jarmalka controlka regierung dowladda ayuu controla Verschiedene Sagalat wuxuu ku leeyahay wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament maxaa lagu magacaabaa also wie nennt man maxaa lagu magacaabaa in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei markii ay xisbiyo markii ay xildhibaano ay hal xisbi ka tirsan ay midoobaan kuwaasoo marka baarlamaanka ku jira xisbiyo hal xildhibaano markii hal xisbi ku midoobaan oo baarlamaanka Jarmalka ka tirsan maxaa lagu magacaabaa ayuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay Verband ayaa lagu magacaabaa uu ku leeyahay associate wuxuu ku leeyahay Ältestenrat waxaa la odayaasha dhaqanka Fraktion ayaa lagu magacaabaa ayuu ku leeyahay iyo sidoo kale dee opposition mucaarad ayaa lagu magacaabaa ayuu ku leeyahay teeba saxe Saashna la weydiiyey marka oo ahayd maxaa lagu magacaabaa Jarmalka markii ay xildhibaano oo hal xisbi ka tirsan ay midoobaan kuwaasoo baarlamaanka Jarmalka ka wada tirsan waxaa lagu magacaabaa waxay tahay Fraktion macnaheedu waxay tahay xildhibaano isku tagay oo hal xisbi ka tirsan tusaale ahaan oo kale sidoo kale SPD xildhibaanadeeda oo kale oo ka tirsan baarlamaanka waxaa la yiraahdaa Fraktion macnaha Sagaashanaad wuxuu ku leeyahay die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch wuxuu ku leeyahay Bundesländada Jarmalka maamul goboleedyada Jarmalka waxa ay siyaasadda ama sharciyada guud ee wadanka Jarmalka kaga soo maraan den Bundesrat markay rabaan inay siyaasadda guud ee wadanka Jarmalka ay wax ka soo bedelaan rabaan oo kale waxay kaga bedeli karaan oo ku leeyahay Deutsch den Bundesrat kaga bedeli karaan ayuu ku leeyahay die Bundesversammlung waxay kaga bedeli karaan ayuu ku leeyahay Bundesversammlung xarunta den Bundestag xarunta maamul goboleedyada xarunta baarlamaanka Jarmalka die Bundesregierung dowladda ay u soo marayaan ayuu ku leeyahay dowladda guud ee wadanka ayay u soo marayaan marka Bundesländada waxa ay siyaasadda Jarmalka ay kaga qayb qaataan siyaasadda guud ee wadanka Jarmalka kaga qaataan Deutschland Bundesratka ay kaga qaataan oo maxaa yeelay markuu maamul goboleed hadda kasoo qabo maamul goboleedka Hessen oo kale markuu rabo inuu mashruuc rabo hirgeliyo isla markaana uu rabo mashruucaas inuu mashruuc guud oo wadanka Jarmalka ka dhigo wuxuu tagayaa qoladiisa ergada ka tirsan oo u dhiibanaya oo tagaya Bundesratka marka ergadaas markuu Bundesrat iskugu imaado Bundesratkaas horaan kugu sheegay waxaa jooga erga kale oo ka imaada dhammaan maamul goboleedyada wadanka mashruucaas ayaa meesha iskugu soo bandhigaya sidaas ayay marka ugu hirgelinayaan marka mashruuc guud markuu Bundesratka keeno oo qolada kale u sheego mashruuciisa ama sharciga oo rabo inuu yeelo ayaa doorasho ka dhacaysa meeshaas waa isku gacan taagayaan haddii lagu wada aqbalo sharcigaas oo ay keeneen wuxuu ka hirgelaya dhammaan wadanka dhan ka hirgelaya Sagaashkood wuxuu ku leeyahay in Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben das Regieren wird wuxuu ku leeyahay Jarmalka markii ay maamul goboleed dowladdiisa ay isbedelayso tusaale doorasho dhacday in laga guuleystay markuu wareejinayo xilka saameyn ayay ku leedahay Auswirkungen saameeno ayay ku leedahay die Bundespolitik siyaasadda guud ee wadanka ayaa saameyn ku leedahay ayuu ku leeyahay das Regierung dowladdaas wird schwieriger way adkaanaysaa ku leeyahay wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert haddii inta ugu badan oo Bundestaga ay isbedelo saameyn ayay leedahay ayuu ku leeyahay macnaha leichter way fududaanaysaa ayuu ku leeyahay wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen way fududaanaysaa haddii xildhibaano cusub ay Bundesratka imaanayaan xisbiyo cusub haddii Bundesratka imaanayaan way fududaanaysaa ayuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay schwieriger way adkaanaysaa ku leeyahay wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird haddii inta ugu badan oo ay Bundesratka ka mid haddii ay Veränderung ku imaado ama uu isbedelo way adkaanaysaa ayuu ku leeyahay iyo ta u dambayso ayadan leichter way fududaanaysaa wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt way fududaanaysaa haddii oo Bundesland oo taajir ay qosayso way fududaanaysaa ayuu ku leeyahay marka teeba saxaya taasna la weydiiyey oo ahayd markii ay maamul goboleedyada oo ay dowladdiisa isbedelayso saameyn ayay ku leedahay Bundespolitik siyaasadda guud ee wadanka das Regierung wird dowladdaas
wird schwieriger way adkaanaysaa wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird haddii tirada ugu badan oo ay Bundesrat ka mid ah ay isbedelaan oo kuwo kale cusub ay imaadaan yacni borsaska haddana meel walba ka imaanayo siyaasadda guud ee wadankana waa adkaanaysaa tusaale ahaan 3 sano ayaa dad meel wada fadhiyeen ama 2 sano bar ayaa dad meel wada fadhiyeen sharciyo cusub ay soo saareen sharciyadii weli qaar aan la dhammaynaa laga yaabaa haddii 3 sano 2 sano barka ay dadka ugu badan oo xisbiyada tusaale ahaan Bayern oo kale haddii gobolka Bayern oo kale haddii xisbiyada ugu badan ama dadka ugu badan ee Bundesrat ka fadhiya ay leedahay oo ay xisbigaas baxo kan kale imaanaya haddana kuwa cusub imaanaya kuwaas dhan way baxayaan kuwa kale cusub imaanaya markaas meesha marka kuwaas imaanaya cusub haddii ay ugu badan yihiin processka waa in la fahansiiyaa waa in haddana kow laga soo bilaabaa saas ayay saameyn ugu leedahay macnaha su-aasha shanaad wuxuu ku leeyahay was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland maxaa micno tahay uu ku leeyahay ereyga lasoo gaabiyey ee ah CSU jarmalka maxay ugu micno tahay wuxuu ku leeyahay Christliche Sichere Union ayaa lahaa uu ku leeyahay Christliche Süddeutsche Union ayaa leeyahay uu ku leeyahay Christliche Soziale Unternehmenverband ayaa loo ku leeyahay iyo sidoo kale Christliche Soziale Union ayaa lahaa uu ku leeyahay marka intee baa sax ah su-aasha la weydiiyey oo ahayd maxaa loogu leeyahay ereygan lasoo gaabiyey CSU micnaheedu waxay tahay saaxiibayaan Christliche Soziale Union ayaa lahaa uu ku leeyahay oo ayadan ah ururka kirishtaanka ee socialka ah waxaas camal dhahan macnaha la soo gaabiyey CSU wadaadin fahansiyo waa walaasha xisbiga CDU xisbiga CDU oo walaashiisa dhahan oo kaliya waxay ka tirsantahay wuxuu ka jiraa CSU gobolka Bayern bis ayuu ka jiraa laakiin waxayna wadaag yihiin waxay soo samaadaan CDU su-aasha saddexaad wuxuu ku leeyahay jeme Zweitstimmen eine Partei bei einer Bundestagswahl bekommt desto haddii xisbi oo doorashada Bundestaga doorashada guud ee wadanka oo helo codka labaad waxay la micno tahay uu ku leeyahay mehr Sitz erhält die Partei im Parlament kuraas badan ayuu helaya ku leeyahay xisbigaas baarlamaanka ayuu ka helaya waxay la mid tahay uu ku leeyahay haddii xisbi oo doorashada guud ee wadanka Jarmalka ku jiro oo helo doorashada labaad wuxuu helaya ku leeyahay weniger erste Stimmen kann sie haben wuxuu erste Stimaha koowaad ayuu wax yar yeelan karaa uu ku leeyahay ama doorashada koowaad ayuu wax yar yeelan karaa uu ku leeyahay mehr Direktkandidaten der Partei ziehen ins Parlament ein dadka ugu badan direct candidateska ahaa oo badan ayaa waxay u gudbayaan ayuu ku leeyahay baarlamaanka ay aadayaan macnaha wuxuu ku leeyahay größer ist das Risiko waxaa halis noqonaya uu ku leeyahay halista eine Koalition bilden zu müssen in koalition ama xulafo la abuuro ayaa adkaanaysa ayuu ku leeyahay marka tee baa sax ah su-aashan la weydiiyey oo ahayd haddii xisbi oo u tartamaya doorashada guud ee wadanka Jarmalka ama doorashada xildhibaanada Jarmalka oo helo Zweitstimme codka labaad waxay la micno tahay in mehr Sitz erhält die Partei im Parlament in kuraas badan oo ka helayo baarlamaanka ayay la micno tahay uu ku leeyahay su-aasha sagaasha afraad wuxuu ku leeyahay ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen da noocee ayaa la ogol yahay in Jarmalka lagala qayb galo doorashada Bundestaga doorashada guud ee xildhibaanada Jarmalka doorashada da noocee ah ayaa qofka lagu ogol yahay uu ku leeyahay a 16 sano jir b 18 sano jir c 30 sano jir iyo d 23 sano jir marka haddii uu rabo qofka Jarmalka inuu ka qayb galo doorashada Bundestaga ama doorashada guud ee xildhibaanada Jarmalka qofka waa inuu ahaadaa 18 sano jir ugu yaraan su-aasha 85aad was gilt for die meisten Kinder in Deutschland maxaa quseeya ayuu ku leeyahay inta ugu badan caruurta Jarmalka a Wahlpflicht in ay waajib tahay inay wax doortaan b Schulpflicht in ay qasab tahay inay iskuul aadaan Schweigpflicht in ay aamusaan oo ay waxba aqaan la wadeegin iyo d iyo Religionspflicht in ay waajib tahay diin waajib ah camal macna soo marka inta ugu badan caruurta Jarmalka waxa waajib ku ah waxay tahay Schulpflicht cunug walba oo Jarmalka joogo waxa waajib ah in oo iskuul aado haddaan cunugaas iskuulka aadin waxa waaye sheeg sharci wadanka Jarmalka u yaala qof jabiye camal ayaa la mid tahay cunugaaga iskuul u diran
su-aasha sideetan lixaad wuxuu ku leeyahay was muss jede deutsche Staatsbürger jede deutsche Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen qofka jarmalka ah naagta ama ninka jarmalka ah muxuu da-da 16 markuu gaaro oo yeelanaya ayuu ku leeyahay wuxuu yeelanaya ein Reisebas ayuu yeelanaya baasaboorkiisa oo baasaboor oo ku dhoofi karo ein Personalausweis ayuu yeelanaya ein Sozialversicherungsausweis Ausweiska ama lafta canshuurta ah ein Führerschein gaari Führerschein oo haysta ayuu ku leeyahay marka tee baa sax ah su-aashan la weydiiyo ahayd cilmiga qofka markuu 16 sano gaaro jarmalka wuxuu yeelanaya waxay tahay personal ausweis qof 16 sano jir ah oo aan personal ausweis aan lahayn dhibaato ayaa uga imanayso marka qofku waa inuu markuu 16 sano gaaro automatic personal ausweis asiga oo leeyahay inuu qofka wato waaye su-aasha toddobaad wuxuu ku leeyahay was bezahlt man in Deutschland automatisch wenn man fest angestellt ist muxuu bixinaya ku leeyahay qofka jarmalka joogo oo si automatic ah haddii qofkaasi oo fest angestellt oo noqdo ama shaqo oo fest ah la siiyo muxuu bixinaya ku leeyahay wuxuu bixinaya social versicherung ayuu bixinaya canshuurta loo yaqaan social versicherung ee guud social hilf ayuu bixinaya kindergeld ayuu bixinaya qofka iyo wohngeld ayuu bixinaya qofka marka haddii qofka oo angestellt yahay waxa uu bixinaya waxay tahay social versicherung haddii aad shaqo hesho waxaad doonta ahaw jarmal ahaw ajnabi ahaw haddii qofka oo jarmalka joogo oo shaqeeyo shaqo fest oo ka shaqeeyo qofkaas wuxuu bixinaya social versicherung su-aasha 9 wuxuu ku leeyahay wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln haddii oo xildhibaan ka tirsan Deutsche Bundestag ama xildhibaan baarlamaan guud ee jarmalka oo fraktionkiisa ama xisbigiisa oo rabo inuu bedeshto waxaa dhacayuu ku leeyahay kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren dowladda waxay lumi kartaa ayuu ku leeyahay dadkeeda ugu badan ayay lumi kartaa B wuxuu ku leeyahay dürfen sie nicht mehr an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen fadhiyada baarlamaanka kama soo qayb gali karaan ayuu ku leeyahay iyo C muss der Bundespräsident oder Präsidentin sofort sein ihre Einverständnis geben waa inay madaxweynaha siiyaan einverständnis ama ra'yigooda waa inay u dhiibaan ayuu ku leeyahay iyo D dürfen die Wählerinnen diese Abgeordnete noch einmal wählen dadka doortay markii naagahaba noqob mar kale ayay dooran karaan ayuu ku leeyahay tee baa sax ah su-aashan la weydiiyey oo ahayd haddii oo qof ka tirsan baarlamaanka jarmalka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jarmalka oo xisbigiisa bedeshto waxa dhacaya waxay tahay saaxiibayaal kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren dowladda waxaa laga yaabaa in dowladda ay lumiso dadkeeda ugu badan tusaale ahaan oo qaada SPD oo kale waa dadka hadda ugu badan xildhibaanada jarmalka haddii ay qaar ka tirsan xildhibaanada ugu jiro meesha ay bedeshtaan ay u wareegaan tusaale ahaan CDU ama wax kale waxaa yaraanaya marka tiro badnaanshaha ay kaga bad yihiin baarlamaanka jarmalka sidaas darteed marka haddii ay bedeshtaan waxaa dhacaya waxay tahay Regierung ama xisbi markaas oo talinaya dowladda ayaa wuxuu luminayaa meehadkiisa tirada ugu badan dadka ay haystaan ayuu luminayaa su-aasha 9 wuxuu ku leeyahay wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherung yaa bixiya Sozialversicherung jarmalka yaa bixiya waxaa bixiya ku leeyahay Arbeitgeberha bixiya Arbeitgeberin iyo sidoo kale Arbeitnehmer ninka shaqaalaha iyo Arbeitgeber waxaa la qofka shaqada adiga ku siinaya ama shirkadda iska leh Arbeitnehmer waa adiga qofka shaqeynaya waaye nur Arbeitnehmer bixinaya qofka shaqaalaha bixinaya min Arbeitnehmer qofka markuu shaqeynaya laha ayaa bixinaya ayuu ku leeyahay iyo sidoo kale alle Staatsangehörigen dhammaan dadka oo jarmalka ah ayaa bixinaya ayuu ku leeyahay iyo nur Arbeitgeber ayaa bixinaya ama Arbeitgeberin shirkada u shaqeysa ama qofka u shaqeysa bis ayaa social versicherung bixinaya ayuu ku leeyahay marka deebaa saxay su-aashana la weydiiyo oo saaxiibayaal yaa bixinaya social versicherung wadanka jarmalka waxa bixinaya waxay tahay Arbeitgeberha shirkada adiga u shaqeysa ama qofka adiga u shaqeysid iyo sidoo kale Arbeitnehmer adiga ama qofka markaas shaqaalaha ah labadaba waxay bixinayaan social versicherung maxaa yeelay haddii adiga aadan shaqadan tageen ninkan wax ma bixiyeen soo marka maadaama adiga aad shaqeysay oo ninkan wax bixinaya macnaha laakiin hadda adiga aadan ninkan u shaqeyn lahayn waxna ma uusan bixineen soo adoo guriga iska joogto ninkan kaama Arbeitgeberhaaga kaama bixinaya social versicherungka si u bixiyo caadi ahaan lacagtaada ka bixinaya asaa u diray qolada laakiin si waxaas u bixiyo waa in adiga shaqada tagtaa soo shaqeysaa horta marka hore ama aad contractiga soo saxiixtaa asiga
soo marka labada xisbi labada qofba way bixiyaan arbaad geebaan oo bixiyaa oo shinka loo shaqeynayo arbaad neemaha ama shaqaalahana ayagana way bixiyaan social fashion waxaa kamid ah flega fashion kamid ah unfal fashion kamid ah arbaad los fashion kamid ah intaas oo karanka fashion gaarka caafimaadka ayadina uu ku jiraa waa 5 qaybood hore ayaa usoo sharaxnay su-aasha boqolaad isla markaan aad su-aasha ugu dambeysay ee qaybteena maanta wuxuu ku leeyahay was gehört nicht so gesetzliche Sozialversicherung maxaana quseyn ayuu ku leeyahay Sozialversicherung Jarmalka maxaana quseyn ayuu ku leeyahay waxaa quseynin die gesetzliche Renteversicherung ama cagta oo markii oo qofka duqoobo oo la siinayo ma quseys ayuu ku leeyahay Lebensversicherung oo qalo qofka oo noloshiisa hadhow nafti wax ka ku dhacaan ka bixiyo Arbeitslosversicherung shaqalaanta iyo Pflegeversicherung iyo qofka dhow markii uu duqoobo lacagta lagu haynayo caymiskeeda ah marka deba saaxiib waxa saacad waxay tahay saaxiibayaal Sozialversicherung waxaan ku jirno waxay tahay Lebensversicherung kuma jiro qofkii raba Lebensversicherung si privat ah uu galaya way ka duwan tahay Sozialversicherung waa waajib asiga waana 5 qaybood waa Renteversicherung oo qofka markuu duqoobo ah waxa way Arbeitslosversicherung oo ah qofka markuu shaqo la'aan ku dhacdo lacagta la siinaha Pflegeversicherung oo qofka markii uu duqoobo lagu daaweeyo waxaa jirta qayb kale tood inta aan ku jirin oo aydan ah Krankenversicherung oo qofka hadhow markii uu xanuunsado ama shil ku dhaco ay wax ka bixinayaan iyo Unfallversicherung intaas waa saaxiibayaal inta kusoo gabagabeynayna qaybtani ilaa iyo boqolaad haddii aad wax qalad ku aragtay ama aad su'aal qabtid mar walba ila soo xiriiri kartaa inta kulankan kun ka xiis badan kulmi doona anigu qaliij ah fi amaan illah